بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland. waxaan kaloo salaamayaa saxaafadda. shalay muuse wuxuu ka qayb galay carwo caafimaad oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. waxaan aniguna filayay dadkuna filayay inuu kala hadlo wixii uu qabsoomay dhinaca caafimaadka muddadii uu xilka hayay iyo inuu kala hadlo cudurkii kuudiyaha ahaa ee gobolka Togdheer dadka badan ku laayay qaar badanna u jiifaan xanuunkaas. hase yeeshee waxaa ii muuqday shalayto inaanu muuse xogayaal u ahayn dastuurka iyo xeerarka Soomaaliland. madaxweyne kasta waxa laga filayaa maadaama uu ku xukumayo dastuurka iyo xeerarka dalkiisa inuu xogayaal u noqdo xeerarka. waxa uu dadka ka hor sheegay shalay inuu jiro xeer anigu saxaxay oo lagu soo xulayay komishanka doorashooyinka qaranka. xeerkii lagu aasaasay oo xeerka kaliya inuu leenahay numberkiisana la yiraahdo badan baa maqasheen xeerkaas soo cidi ay tixi raacayso. waxa la yiraahdaa xeerka number 20 ama xeerka 20aad 2001. xeerkaasi wuxuu soo baxay xilligii baarlamaankii hore jiray baarlamaanka horeeyay. waxaana saxeexay 8 December 2001 marxuum madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal cabdiraxmaan cirrame saxiix. nuqulna waan hayaa hadda waanan idiin soo bandhigi doonaa mar dhow haddii ilaahay ka dhigo. 18 sano ka hor bay ahayd. taasi waxayna tusinaysaa inaanu madaxweynuhu xogayaal u ahayn xeerarka dalka. sababtaasina waxaan is leeyahay waa sababta ugu weyn ee uu madaxweynuhu ugu tumanayo xeerarka indhahana uga ridayo. waxaad wada ogsoonaydeen in muran ka jiray komishanka doorashooyinka qaranka 2 sano ee muuse madaxweynaha ahaa. muddadaas 66 jeer baa la kulmay axsaabta qaranka iyo madaxweynuhuba. waxaana lagu soo gabagabeeyay shir wada jir ah oo ka dhacay madaxtooyada oo lagu soo afjaray arrintaas bishii July ee sanadkan. beesha caalamkuna goobjoog ka ahayd shacbiguna aad iyo aad u soo dhaweeyay. heshiiskaas nuxurkiisu wuxuu ahaa in komishankii hore la bedelo mid cusubna la sameeyo. muddadaas sanadkii markaanu isku haysanayna la iskuma diidanayn in komishanka la bedelo. saxaafadduna waa intaasoo jeer bay isagoo hadlaya muuse dhegaysatay. muu diidanayn inuu bedelo laakiin wuxuu lahaa awoodaan ku bedelo ma lihi. xeeraan u tix raaco bedelkooda ma hayo laakiin marna kama murmin in la bedelo. waxa la yaab leh in muuse isagoo tix raacaya heshiiskaas iyo xeerkaba uu waraaq u soo qoro axsaabta qaranka nuxurkeeduna yahay inaanu soo qorro xubno cusub oo komishankii hore bedela. sidaa ka warqabtaanna waa ku dhaqmeen axsaabta qaranka iyo guurtiduba. hase yeeshee wuxuu soo magacaabay xubin ka mid a xubnihii hore ee la duray muranku ka jiray
waxaa la yaab leh siduu dadka ugu qancinayo inay xubintaasi tahay xubin cusub. waxaa kaloo ku soo daray commissionka nin aan lagu muransanayn inuu xisbiga kulmiye yahay, taas oo uu reebayo xeerkii uu shalayta tix raacayay ee xeer number 20/2001. heshiiskii waxaad mooddaa inuu dafiray muuse, waraaqdiisana talo miyuu dafiri doonaa ama wareegtadu soo qoray. muuse iyo xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waxay caadaysteen kuna soo celceliyaan in xisbiga waddani iyo taageerayaashiisu ay gacan saa la leeyihiin Soomaali weyn. waxaan ummadda u sheegayaa in muuse iyo gacanyarayaashiisu u adeegsadaan ku celcelinta arrintaas kala qaybinta bulshada walaalaha ee reer Somaliland ee ay ahayd inay mideeyaan. balse waxaan idiin sheegayaa inay muuse shakhsiyan u dheer tahay arrintaa adeegsigeedu inuu u jeedo beel gaar ah oo reer Somaliland ah, danta uu ka leeyahayna tahay kala haynta iyo kala qaybinta ummadda reer Somaliland walaalaha ah. arrintaas oo sun iyo waabeeyo ku ah dowladnimada, sida dhaxalkana u cunaysa qarannimada iyo wadajirka Somaliland. waxaanu cambaaraynaynaa si aan madowdoodu ku jirin dhaqanka noocaas ah ee uu ku dhaqmayo madaxweyne qaran oo ay ahayd in ummaddiisa mideeyo. waxaananu uga digaynaa haddii uu hore ugu macaashay kuna gaadhay daran siyaasi ah oo kooban, ha ogaado maanta inay sababi karto kala dirka ummadda iyo burburinta qarannimada Somaliland. ugu dambayn, waxay noo caddaatay in muuse ku hayn waxaan ahayn muran iyo garnaqsi aan dhammaad lahayn. haddaba mar haddii ay kaalintoodii gabeen golayaasha qaranka oo hawshan lahaa, maanta taladu waxay u taallaa waxgaradka ummadda sida odayaasha dhaqanka, culimada, ururada bulshada, abwaanada, sharci yaqaanada, saxaafadda iyo aqoon-yahanka dalka inay isu tagaan si ay u badbaadiyaan qarannimada. waana in la isugu yimaado madal qaran. waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka Maroodi Jeex inay berri 8 subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiim ah oo qarankan lagu badbaadinayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.